وصافنا إن نسلمت كدبنا إسبريف قريني هي موجكي هي وقت يسبسد إن الجراي هي قاب كلها كل واحد سكوا فقي هي إن ما إنتنا نوعرت وحنا نسود من محل سبب محل دفاعنا ما مدحونا دفاعنا من الوزارة دفاعنا ما شخصنا دفاعنا من الدستور دفاعنا وكل شيء كي ماشي كسر بحيو حاول نقول إلا يراهو إنه الدستور كان دفاعنا أو واحد النهاي وإحنا يراهو هي الدستور هي الديمقراطية marka aad leedahay hiil dastuur hadda waxa haysta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ma waxa tiin xildhibaano labadaas dhinac garab la safan mase xildhibaano dhaxdhaxaad ah kulankiina maxaa lagu taageeriyay أنا وأنا حل كان إلى سنتين حلكم مناسبة هذه لا يكون يا إن إذا قصدوا تمادوا ودوا كل كلبوري سيمبر لو جيرو هذه لا موجود كذا لكن أنا أي سنتين هذه لا يكون يا حل مناسب تاعها لون السجود مساعد ولا بدي يعرف المساعدة وحل جواز عبارة في الوقت كان في شوية وذاك وحكي جرا رسالة بحكي جرا وضفانا كده عند والله بقى كوسام عليه بس بصير متفهم فتويا جرا سيدا شو خيرية واحد جرا ندير كوريا إذا ما أنت رجال قادر هاوش تنا واحد قادر ساسي وورا بدأ عليه كده تضحك بالأصل بقول مشان الآن وذاك رامش كي ميود يلك ولا تانية إذا المشان دراسة ما يجينا ولا صفصة أنت صرنا عقلك كيرسا أصلا سؤال كمان ملكيه يو أمريكا يلا بتقولي إذا ما المشاركين يكون أنت فرصة هلان إنهم يشاركوا هلان أنت سجل وين كانت عندما لا ربنا حد النبضة قعدت أقول من بديك معنيه إنه وحن أفهمي إذن كحلبانadii kulmay maanta inaad ka soo horjeedaan mooshinka laga keenay ra'iisul wasaaraha warka soo sida ma aha taas waayahay tiradiinu hadda idinku imisay gaartay maanta kulantay أنت أذكر وأنا بقول أفرت اللو. بقول أفرت اللو حلبان أو تاجرتن رئيس الوزراء. أو تاجرتن مشكلة حلوة وصابونين. وأنا بس على شخصي بكالله أيوه. ده كان أنا فترة وراك على سؤال شنو جرب كذا شوابي. أنا واحد دفاع عنا كونستيتيوشن حلا كان هنا تحل دفاع ترى وده كل مرحلة كل جزء سنة يقول بوري البرلمان كيف بس عقل أيوه. أو بيش هذه لا يكون يعني لما تنكذب البرلمان كله جاي. أنت سنان رئيس الوزراء حكومة السيستم هو أول برهاش مناسب هين. نيو ديرك العجز يجري ولا سوسي بينا أيوه أنت سبب المشاركة وكم غير إذا ما ميسينات دي عن لهين وحصل إن لا يستمر سجرايو ومهم أساسا مناطق تقولوا سيكون مناطق الله كلام idinku xilligan maxay tahay ceebtaad u aragtaan ama dhibkaad u aragtaan in ra'iisul wasaaraha mooshin laga keeno waxa way horta baarlamaanka fasax u galaya haye waxa loo baahan yahay miisaaniyadii waxa loo baahan yahay hadda hadii arrintaas dhacdaba in dowladda wasaarada soo dhiso xukuumaddu soo dhiso miisaan la sameeyo intay qaadeen si toos baahan tahay waa u tahay intaas oo dhan waxa weeyaan xilligan applicable kuma aha mid kale waxa weeyaan xildhibaan kale fikir waa qabi karaa inuu arko in mooshin la keeno oo ra'iisul wasaaraha lagu sameeyo xildhibaanada kale way arkaan inaysan macquul ahayn taas marka waxa weeye waxyaabaha meejarka ah ama shaqooyinka oo meejarka oo baarlamaanadu u shaqeeyaan weeye laakiin waxa muhiim ah in فكر كله كل دوران كرا عقبة ولا جودية عقبة للجنة كده waxa weeyaan inta yar inta badan oo gaarto marka xildhibaan aad sidaas leedahay hadda mooshinka ka sukow waxa jira khilaaf banaanka yaal oo muuqda oo aan qarsoonayn oo u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xildhibaanna madaxweynaha taageeray oo ra'iisul wasaaraha mooshin ka keenay idinkuna waxaad sheegteen inaad ra'iisul wasaaraha taageersaneen laakiin mooshinka aad ka soo horjeedaan soo warkuma marka idinkuna dhinaca ra'iisul wasaaraha in la idinku tiriyo waxa weeye qofka galashada si fahamkiisa qofka si uu fahmaa laakiin anagu mid aanu briefay taasada ku sheegaya shacabka Soomaaliyeed mid kale waxa weeyaan قصر بان مدوك الدومتين لكن أو أبيو كذا شوية. waayahay arrimahaas markaan ka gudubno waxa jiray kulan aad caawa yeelateen oo gudoomiyaha baarlamaanka aad la yeelateen oo gudiyada joogtada ah uu la kulmay kulankaas maxaa looga hadlayay walaalow halkaas waxa weeye waxaan u maaynayaa taas anigu si gaar ah oo waxaan karo halkaas gudoonka uu ku kooban jeclaan lahayn ka hadashaan oo iyaga magaraysa ruqsadii ma sheegna ka hadalna anaga magarat laakiin kulanka wuxuu ku saabsanaa waad ogtahay Soomaaliya adigu daba waa fariix baan ka hadalna gudoomiyaha gudiga okay gudigaaga gaar ahaan wixii aad ka hadasheen maxay ahaayeen marka dadka baa waxarna wixii ka soo baxay conclusion kitaabsiinad gudoonka isaga xawilaya in aanu ka hadlo wax ka qabsaday walaal raaliya haddii aad doonayso guri
haddaad doonayso guri yar haddaad doonayso guri weyn iyo meel baaxad weyn oo lagu noolaado jikadoo casriya iyo weliba beerta nasashada oo aad u ballaaran iyo guryaha iridda weyn laga gala kadibna ay guryuhu gudaha ku badan yihiin dhismahoodu ammaankooduna uu sugan yahay intaba waxaa kuula diyaaray sharikadaasi waxaa kaloo ay ku diyaarisay dadka doonaya hoteelada in loo dhisay iyo guryaha qaab aad u wanaagsan iyo naqshada iyo guryaha caalamiga ee ku yaala qaaradda Yurub oo kale ayadoo shirkadu ku ballan qaadayso riyadaada inay run ka dhigto waxa intaas dheer meel kastoo shirkadu ay dhistaba biyuhuna ay toos yihiin looguna talagalay goobo ay biyuhu ka baxaan wasaqda oo aan haba yaraatee ku istaagaynin waxa shirkadaasi ay ka caawinaysaa in korontadu ay si toos tahay waxaan meesha ka maqnayn air conditionkii iyo weliba qalabkii qaadaya qiiqa iyo awoodda enerjiga iyo xagga korontada ka timaada cadceedda weliba leerarka korontada laga dhaliyo dhinaca motorada wixii faahfaahinana waxaad kala xiriirtaan